kusoo dhawaada wararka caalamku ay nala socodsiinayso Kowsar Maxamed Cabdullaahi. mahadsanid Cadow. mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa soo saaray digniino degdeg ah oo la xiriira fatahaado ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalkaasi iyadoo ay da'ayaan roobab mahiigaan ah. fatahaadahaas ayaa burburiyay buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Kutar ee koonfurta galbeed ee Pakistan. koronto la'aan ka jirta dalka ayaa carqaladaysay dadaalada samata bixinta dadka. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya guryo ay daadad ku qaadeen kuwaas oo ku yaala waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar. in ka badan 900 oo qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay roobab ka da'ay guud ahaan Pakistan tan iyo bishii Juun. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa booqday koonfurta bari ee gobolka Sindh si uu u kormeero howlaha gargaarka. agaasimaha wasaaradda beeraha gobolkaas Abdul Sattar ayaa ka warbixiyay saameynta ay roobabkaasi ku yeesheen beeraha cudbiga. अब जो कपास की पोजीशन है hadda marka la eego booska cudbiga oo kale haddii aynu bixino qiyaasta khasaaraha waxay ku dhowdahay 85%. qiyaastana waxay u muuqataa mid macquul ah marka loo eego dhulka webiyada kaas oo ka badan 100,000 oo hektar oo ku yaal dhammaan degmooyinka aagaas ku dhowdhow. mustaqbalku wuxuu u muuqdaa mid mugdi ah. waxaa jirta cabsi xoogan sababtoo ah duruufaha nagu gadaaman markaanu eegno ama maqalno ama intaanu akhrino xogaha ka imanaya shirarka isbeddelka cimilada. dhammaantood waxay tilmaamayaan in wax ka sii daran ay iman doonaan mustaqbalka. ilaahay baa weyse laakiin xaqiiqadu waxay u muuqataa mid daran. warna haalaad firbi isay taraf jaaray. xogaga Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay duqeyn xagga cirka ah ka fuliyeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi. telefishinka Tigray oo xulufo la aflaagada TPLF ayaa baahiyay sawirro muujinaya guryo la burburiyay isagoo dhanka kalena sheegay in la dilay dad rayid ah. Addis Ababa weli kama jawaabin eedeymahaasi loo soo jeediyay balse waxa ay dadka ku nool Tigray ugu digtay inay ka fogaadaan goobaha ay ka dhow yihiin xogaga falaagada ah. dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa galay maalintii saddexaad wuxuuna soo afjaray xabad joojin socotay muddo 5 bilood ah wuxuuna ku soo boogmayaa xilli uu sii xumaanayo dhibaatada bini'aadanimo ee ka taagan gobolkaasi. hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in gawaaridooda gargaarka ah ay gaari waayeen gobolkaasi Tigray. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay ku adkaatay inuu lacago u diro xubno ka tirsan qoyskiisa oo ku nool gobolkaasi Tigray. maamulka tamarta Britain ee Ofgem ayaa shaaciyay in la kordhin doono biilka tamarta ee qoys walba isla markaana sare u gaari doono in ka badan $4,000 wixii loo gaaro bisha Oktoobar. sare u kaca qiimaha tamarta ayaa noqon doona 3 jibaar intii ay ahayd sanadkii hore. madaxa waaxdaas Jonathan Brearley ayaa BBC-da u sheegay in qiimaha la kordhiyay kadib markii ay sare ugu kaceen qiimaha gaaska ee caalamka oo dhan kaas oo ka dhashay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. waxaan aragnay gaaska Yurub ee Ruushka ka yimaada oo si la yaab leh u sii go'aya. sidaas awgeedna waxaanu aragnay oo kale in qiimaha uu sare u kacay. marka aan haatan fiirino qiimaha gaaska ee xilligan qabowga waxa uu ka sare maray qiimihii hore 15 jeer marka loo barbar dhigo muddo 2 sano gudahood ah. marka haddii xaaladaas uu maanta ku sugnaan lahaa shidaalka nooca petroolka waxaanu bixin lahaynay 500 oo lacagta giniga ah oo dheeraad ah. It would cost us £400 to £500 just to fill up our car. ugu dambeyntiina hay-adda saadaasha hawada ee loo soo gaabiyo WMO ayaa sheegtay in saadaashooda ay muujinayso in geeska Afrika uu galayo 5 xilli roobaad oo xiriir ah oo uusan roob da'in iyo inay sii socon doonto abaartii ugu xumeyd ee ku dhufatay geeska Afrika muddo 40 sano ah kadib. WMO oo saadaashooda sii watana waxay sheegeen in bisha 10aad iyo bisha 12aad ee sanadkan ay muujinayso in gobolku wajihi doono xaalad abaar ah. guuleed cartan oo ka tirsan xarunta dhexe ee isbeddelka cimilada bariga Afrika ayaa sheegay in dalalka Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ay qarka u fuuleen musiibo bini'aadanimo oo aan hore loo arag. intaa waxay nooga dhan wararka caalamka ee BBC-da. Cadow aad bay u mahadsan tahay Kowsar Maxamed Cabdullaahi oo wararka caalamka nala socodsiinaysay. markana dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow barnaamijka la socodsiinaya. haddii aan u daadagno barnaamijkeena
xiisad siyaasadeed ayaa ka dhalatay go'aan uu toddobaadkii hore baarlamaanka jubbaland muddo sannad ah ugu kordhiyey mudxileedkiisii iyo kan madaxweynaha maamulkaasi baarlamaanada maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa horey u qaatay muddo kordhin sannada jubbaland ayaa waxaa sannadihii lasoo dhaafay ka taagnaa khilaaf sababay in gobolka gado uu ka baxo gacanta maamulka kismaayo haddaba maxaa lagu saleeyey muddo kororsiga uu go'aamiyey baarlamaanka jubbaland sharciyada markaasi sharci ma loo heli karaa ama ma loo heli doonaa saameyn intee dhan ayuu go'aankaasi ku yeelan doonaa siyaasadda dowlad goboleedkaasi qaab noocee ayay dowladda federaalk uga falcelin doontaa muddo kororsiga maamul goboleedyada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dooda jimcaha ee barnaamijkeenani waxaana barnaamijka marti noogu ah xildhibaan cali cabdiwaaxid xaaji cali xoog oo ka mid ah baarlamaanka jubbaland ee ansixiyey muddo kordhinta kismaayo ayuu khadka taleefonka uga jira doctor maxamed aamiin faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda adhaada jubbaland una tartamaya doorashada madaxweynenimada soomaaliya ee ka dhacay 15 bishii may ahna gudoomiyaha xisbiga iftiinka cadaaladda iyo horumarka muqdisho ayuu khadka uga jira sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadan doona hadduu allah uu daliidhaahdo abukaate sakariya yuusuf oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya sidoo kale muddo ka shaqaynayay dastuurka soomaaliya nairobi ayuu ku sugan yahay uu kaga qayb qaadanaya barnaamijka akhyaarta sharafta leh dhammaantiin waxaad leenahay waad mahadsantihiin ee kusoo dhowaada barnaamijka